wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Xuseen Axmed Caydiid iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay xarunta wasaaradda cadaaladda ee gobolka Togdheer waxaana dhismaha xaruntani maalgelisay hay'adda UNDP. Gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiri oo goreyntii munaasabadaasi dhagax dhiga ka hadlay ayaa sheegay in xarunta wasaaradda cadaaladda ay wax weyn ka tari doonto baahiyaha bahda garsoorka ee gobolka Togdheer waxaana uu yiri wasiirka cadaaladdu halka maanta wuxuu soo jirmaado halkan inuu dhagax dhigo oo noo furo xafiiskii wasaaradda cadaaladda ee gobolka Togdheer. runtii cadaaladdu waa shayga asaasiga ah يعني إلهي بقى دغيس وقارسين كرايد إنه شيء عدالة بوحدة بني آدم ولالك يوميك واحد كلا بلونك وحوية مع عدالة ده لو بهاي هاي معناتها حفيزك عدالة ده مجرحينا هكذا واحد بصوفه وكذا بيسا مسؤول كسعودي hay'adda UNDP oo mashruucan hirgelinaysa ayaa isna ka warmay hay'adda UNDP iyo mashaariicda kala duwan ay ka hirgelisay gudaha Soomaaliland iyo wada shaqeynta wasaaradda cadaaladda iyo hay'adda UNDP ahaan waxaan ku faraxsanahay inaanu hawshan caawimo ka qaadano fadkii bixin lagu dhisayay ma aha oo xafiiskan kaliya laakiin wasiir sadogtaan filayo deekan la wareejiyay lagu xayndaabay lagu sugay dhulkii maxkamadda xafiiskan laga dambeeya waxa ka mid yihiin taageerooyinka UNDP xisay sidoo kale burca waxay ku jirtaa gobolada ugu muhiimsan gobolada kaalinta weyn ka hela taageerada UNDP Soomaaliland cadaaladda siiso. wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Xuseen Axmed Caydiidna halkaasi ka hadlayay ayaa u mahadceliyay hay'adda UNDP kana xog waramay faa'iidooyinka xaruntani wasaaradda cadaaladda ee gobolka Togdheer waxaana hadaladiisii ka mid ahaa runtii farxad bay ayay noo tahay saaka inaanu dhagax dhigno xafiiskii wasaaradda cadaaladda xafiiskii gobolka ee wasaaradda cadaaladda ee gobolka Togdheer ruuxantii وحفيظ المسلمين هاي كانوا وين بكقاضن دونا حق جنت عدالة ضلك اسكو حركة هذا بعد عدالة هي كورهين تدباتوين كودة هي وحرصارنانتا هورمارينتا هذا بعد عدالة وحفيظ كانوا كسوي نوي انت هابك الصو وقتوي وحفيظ كيس هذا رنتي أنا كدس نقبل الله وحكور ريون laba xafiis oo aanu midna sool ka soo furay midna sanaag ergaba iyo lascaanood oo February bilowgeedii sanadkan la furay baa wax xafiis gobol oo wasaaradda cadaaladda leedahay. xaruntan wasaaradda cadaaladda ee saaka laga dhagax dhigay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa wax weyn ka tari doonta baahiyaha bahda garsoorka hadii hirgalo dhismaha wasaaradani. Khalid Bakeele, shabakadda caalamiga ee Itraaf News, Burco.